بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام يا رمان أصحابتا waxaan rabaa inaan wax yar idin tuso bahashan oo si u shaqeysa inta badan lagu shaqeysiyo PHP da iyo MySQL ka oo isku xiran bahashan installation keeda time buu qaataa inta badan xogaa yar ilaa 5 minutes ilaa 7 minutes meelahaas bahashan marka aad isticmaalaysid waa in aad boortiska aad saxda si ay kugu shaqeyso oo uu kugu soo qabto ogow MySQL ka iyo PHP da midna ma ku shaqeynaya hadaan aadan yada start garayn lana soco waxay inta badan ay ka soo muuqataa xagga hoose haddii ku muuqan weydo even ay xagga ku jirto saan ay ka tahay even ay saa ku tahay marka ani hadda dibadda aan dhigtay gudahan waa dhigan kartaa dibaddana waa dhigan kartaa marka waxaan insha Allah rajaynayaa in aan soo bilaabo oo aan kasoo bilaabo min bidaaya ilaa ay nihaaya aynu isla soo gaarno halka aynu hadda joogno bismillahir rahmanir rahim aynu bilowno in aynu soo bilowno aynu bilowno in aynu saarno dibadda dhigno saa ujeedaan uninstall baan iri uninstall baan dhahay timeka installationka uninstallka intaasoo dhan waxay noqonaysaa xogaa in aan boobsiino si timeka uu inoogu save garoobo xogaa time bay qaadanaysaa in ay uninstall noqoto in ay noqoto installing exactly hadda uu dhameeyay uninstalling soo jeedaan examkan tegaysa marka aan restart u diro computerka ama refresh in ay tagto oo ku qasbanta dabcan haddaan isla fur ma ii furmayso because maga jirto meel ay taalo oo way delete karaysmatay shortcut umbis bay ahayd hadda kaas marka isla fur waa iga tagtay okay xageen ka soo dejinayaa gal browserkaaga hadba kii kugu fudud ee ku soo dejin kara hadda chrome-kan galaya isagana ka soo dejinayaa marka waxaad samaynaysaa halkan linkiga hoos baan idinku soo qorayaa dabcan marka aad tirahdid okay versionka u dambeeyay waa kan dabcan waa kan versionkana ugu dambeeyay okay automatically aynu la soo degno shaashadda aan ku weyneeyo dabcan waad aragtaan hadda in ay soo degtay examki marka ay soo degto dabcan ani hadda ay soo degsan tahay installation marka ku dhamaado habka aad maraysid ayaan isla maraynaa iska xir isu soo laabanaynaa wax yar inta aan soo bixinayo dabcan waa tan badii waa soo dejiyay iyo MySQL ka isku jira dabcan programkan example la dhaho ayaa labadaba mas'uulka ah oo ay ku soo kacaan
and okay waan garanay time ka hore aan ku sheegay installation ka xogaa aduu 5 daqiiqo 7 daqiiqo meelahaas qaadanaysa marka waxaan sameynaynaa video waa boobsiinaynaa insha Allah si aan time u manage karayno okay سؤاشان وسؤاش ugu muhiimsan waxaad sameynaysaa computerkaaga waxaad soo furaysaa xaggan hoose search button inuu ku leeyahay waan filayaa hada ma ilaha laakiin waa idin tusayaa si aad ay idinku sahlanaato in aad ila fahantaan meesha aan u socdo search button kana ku dhufanaysaa kadib waxaad gelinaysaa USC okay enter dheh then halkan ana down bay joogtaa laakiin dadka qaar halkan ay joogtaa dadka qaarna halkan ay joogtaa down waa inaad geysaa and meesha u hooseysa aad geysaa okay then okay dheh okay tan okay dheh markaa okay next dheh then waxaan tigtayga saaran yihiin waxba ka qaadan hana saaran next iska dheh examka inta badan markasta wax ku shubantaa qaybta sida la dhaho marka haba ka saarin sideeda u daa halkan line mountain dad tigta u deysatid waxay ku tusaysaa yani website-ka caadiga ku beenaysaa haddii kalena website-ka ku beenaysa laakiin hadda inooga daa si ay inoogu fududaato inaad fahantaan okay setup-ka waa soo socda waa kan hataan ilahaa ay ku beenaysaa website-ka waxyaabo badan bay kaa caawinaysaa inaad xagga ka akhridid insha Allah next sida then installation ku hadda bilaabaya okay ugu dhameeyay and then finish mainland waan garanay hadda wax ku weydiinayaa luqadda okay englishka caadiga inuu gudaa save dheh then waraaqda baad ku soo dhigaya waraaqdan hadda haddii aan ani start gareeyo wuu iga ogolaanaya because wixii yani liiga rabay oo dhan shuruudii oo dhan waa soo buuxiyey okay start markaan dhaho wuu iga ogol yahay sidoo kale MySQL-kana waa iga ogol yahay okay waxaan rabaa in aan yani meelahan in aan number qurux badan aan ku galo yani sida badanaa marka aad galaysid localhost numberka halkan kugu qoran 443-gan aad inta badan yani loo baahdaa in la bedelo haddii aan ku isticmaalo sidiisaasna waan ogaadnaa laakiin even haddii uu kuuga shaqayn waayo oo kaa diido oo kale axsanaysaa configurate baa leedahay kadib waxaa furaysaa tan u sarreysa then network keenayaa waxaa bedelaysaa xaggan soo soco halkan waa tan listen-tigan lagu sheegayo waa tan hore 80 halkan inta badan waxay ku macaan tahay in aad ka dhigatid 80 halkan aad ka dhigtid
sideetan. Good. Okay, soo soco la soco qoraalkan haddii aadan si taxadar la'aadan u wadin xogaa waa ku ilduufaysaa. Local hostiga waxaa ka dhigtaa 1 2 3 4. local hostigaagu waa inuu intaa ku yahay si ay kugu qurux badnaato. Okay, waxaad halka ku haray ma laha. Save garee faylka, save dheh, then hit daaqadan. mar labaad soo fur, waxaa furtaa tan hoose oo ku xigta. Okay, waxaad samaynaysaa listingan waa kan soo jeedid 43 ah. waxaa ka dhigaysaa local hostiga waxaa kasoo dhigatay 1 2 3 4. okay, wax kale oo halka ku haray ma jiro oo aan hoos u sii aadno. waxyaabahan kale ha taaban, waxaa ka bedelin. dabcan waxaan tusay inaanay wax saas ugu sii harin, waxa kuma harin. okay, kana sidoo kale save dheh, then cancel garee, then stop garee. labadaba start garee. hadda oo jeedaan inta badan saan ku qurux badan yahay, waana xalisan kartaa. okay, dabcan errors wuu ku weydiinaya waa kuwan. waxaana errora yani waa ugu dhaceen oo errorskan oo dhan waad aragtaan, laakiin errorskaas in aad ka gudubtid waxaa kuu sahlaysa nambarada hadda halka ku qoran aad koobiyeyso geli oo ku shaqeynaya insha Allah. waa qaybta koowaad oo ah in aad Apache-da aad hagaajisid configuration-ka. qaybta SSL-ka oo configuration-ka SSL iyadana hal meel bas baa la bedelaa oo halkanna 1 2 3 waxa ka dhigaysaa maadaama aad tii hore aad kasoo dhigtay local hostiga 1 2 3 halkanna waa inaad 1 2 3 ka dhigtaa. okay, marka aad kusoo laabatid Windows-kaaga, dabcan ma kusoo qabanaysa, ma kusoo saaraya desktop-kaaga. si haddaba kula soo baxaysa aad shortcut-keediisa ku helaysaa. marka u baahatid inaad soo rangaraysid xaggan ma taalo shortcut shaashada ma saarna, see ula soo baxaysaa. okay, aan wax yar idin tuso. haddaba waxaa gelaysaa my PC-gaaga ama this PC hadba wuxuu kugu qoran, then C drive-ka gelaysaa, then exam-ka gelaysaa, then xaggan ayaa wax ka raadinaysaa tan control-ka ah send-ide, after that create shortcut dheh. automatically hadda uu ku sameeyey. marka aad hadda shortcut-ka inoo sameeyey aan enter nirahno, kaas wuu soo kacay automatically. hadda waa shaqeynaya, labadiiba way noo shaqeynayaan alxamdulillahi rabbil caalamiin. insha Allah waxaan rajeynayaa in aad iyo aad idinku shaqeyn doono. khayr badan ayaan rajeynayaa, waana idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.